بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN. barnaamijkan caawa gebi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa maxay yihiin shuruudaha Putin uu ku xiray inuu soo gabagabeeyo dagaalka Ukraine imika ka socda oo ku dhow 4 sano. saacadihii la soo dhaafay Ruushka ayaa duqeymo culus qaaday magaalada Ukraine caasimadda u ah ee Kiev ayaa lagu soo waramayaa in lagu galgashay kadib markii Ruushka uu ku weeraray in ka badan 500 oo diyaaradaha droniska iyo sidoo kale gataalada nooca balastiga iyo kuwa guuxooda ka dheereeya ee cruiska. Ruushka waxay ku andacoonayaan inay beegsadeen goobo ciidamada lagu tababaro, xarumo militari iyo goobo xasaasi ah. laakiin madaxweynaha Ukraine ayaa ku andacoonaya in Ruushka uu beegsanayo goobaha dadka rayidka loona baahan yahay si degdeg ah in lagu helo damaanad amni. arrimahaani waxay ku soo aadayaan iyadoo Mareykanka uu qabanqaabinayo kulan foolka fool ah oo ay yeeshaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo diggiisa Ukraine Volodymyr Zelensky. laakiin aqalka Kremlin waxay sheegeen imika inaysan jadwalka ku jirin wax kulan ah oo dhex mari doona Putin iyo Zelensky. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku andacon jiray in dagaalkan uu ku soo gabagabeynayo 24 saacadood ayaa hadda xaaladdu ay ku adkaatay oo waxay ku noqotay kadar oo dib u dhal. wadahadaladii ka dhacay Alaska ee Putin iyo Trump ayaa la sheegayaa Putin inuu ku adkaystay qodobada ugu muhiimsan ee doodiisa ah ee ku aadan sida dagaalka lagu soo gabagabeyn lahaa. haddaba maxay yihiin qodobadaasi? ma dhab ah in Putin uu doonayo in looga haro Donbas oo ah meel muhiim ah isla markaasna macaadiin iyo khayraad fara badan oo ku dihan yahay taariikh xagga dhaqanka diinta iyo cirqiga ku salaysanna ay kala dhaxayso dadka ku nool dadka waddanka Ruushka? xogahaasi oo idil iyo kuwa kale ayaan barnaamijkan ku lafaguri doonaa. maxamed cadde oo soo ururiyay xogahan oo idil ayaa qadka ku jira. maxamed, Putin waxaa leeyahay ilkaha ayuu isdhaafsaday isagoo ku adkaysanaya qodobada shuruudihiisa in la aqbalo. bal waxaad inooga warantaa maxaa arrintan horta marka ugu horeysa lagu bilaabaya? sanadkii 2014 toddobaadyo kadib markii uu Ruushka la wareegay jasiiradda Crimea ayaa bariga Ukraine waxaa dhaqsadiiba ka bilowday dagaal. mudaharaadyo ayuu ka bilowday gobolka Donetsk iyo Luhansk oo isla markiiba isu bedelay gacanka hadal iyo kacdoon, iyadoo dowladda Ruushkana ay taageeraysay kooxihii xafiisyada dowladda weeraray surayna calankooda, waxayna ku dhawaaqeen jamhuuriyado iyo ayaga leeyihiin. waddanka Ukraine iyo beesha caalamkana weli may aqoonsan goboladaasi. xilligaas laga soo bilaabo gobolka Donbas isbedel ayaa ku yimid, wuxuuna noqday safka hore ee dagaalka. xabad joojin aanan marnaba meel marin ayaa dhowr goor laga dhawaaqay iyo xabado la isweydaarsanayo iyadoo wada hadal la socdaan. dagaalkana wuxuu noqday mid soo noqnoqda oo lagu kala qaybsamay xukuumaddii. ciidanka Ukraine ay ku kala qaybsameen iyadoo ay kala taageerayaan militariga Ukraine dhinaca kalena dowladda Ruushka oo mucaarad taageeraysa. iyadoo arrintaasi xal loo waayay ayaa waxay hordhac u noqotay in Ruushka uu dagaal xoog leh kusoo galo bishii February 2022 markaasoo Ukraine aroornimadii ay kusoo kacday gantaallo iyo taangiyo waqooyiga iyo bariga iyo koonfurta ka yimid. gobolka Donbasna waxay noqotay xudunta meelaha uu weerar ku qaaday Ruushka. madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku tilmaamay waajibaadkiisa inay tahay inuu difaaco gobolada xorriyaddooda ku dhawaaqay ee dadka Ruushka afka Ruushka ku hadla, wuxuuna sheegay in howlgal gaar ah uu ka bilaabay waddanka Ukraine. weli waxaad moodaa isku daygii xisaabaadka ee dhanka Ukraine barigeeda inay dhabaha u furtay, iyadoo aan Ruushka xuduudkiisa istiraatiijiyadeed iyo hamiga uu leeyahay aanan weli la gaarin inay adag tahay inuu dagaalkan istaago. waa gartay way adagtay dagaalku inuu istaago, laakiin waxaa leeyahay Putin shuruudo ayuu wataa. marka shuruudaha maxamed bal hadda aynu hoos ugu daadegno. hadda in ka badan 3 sano ayuu dagaal dhiig badan ku daatay laguna sheegay
dagaalkii ugu dheeraa ee Yurub ka dhaca wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka ayaa socda. Donbass ayaa weli waxa ay tahay goobaha sida weyn loogu dagaalamayo safka hore ah. Shirkii Alaska ku dhex maray August 15-keedii Putin iyo dhigiisa waddanka Mareykanka ayaa lagu warramay in uu soo jeediyey madaxweyne Trump in colaadda lasoo afjaro Ukraine, gobolka Donetskna iyo gobolka Luhanskna ayagoo dhammaystiran Ruushka loo ogolaado, Ruushkana inuu joojiyo dagaalka oo uu joogo khadka oo hadda ciidamadiisa ku sugan yihiin oo ay ku jiraan magaalooyinka Kherson iyo Zaporizhzhia. hindisahaasi haddii uu dhab yahay ayaa waxa uu caddaynayaa waxa uu arko Putin inay tahay waxa ugu sahlan ee uu nabad ku qaadan karo. Nabad joogta ah in la qaataa waxay ku xirnaanaysaa gobolka Donetsk iyo Donbass in ay qayb buuxda ka noqdaan waddanka Ruushka. sababtaasna weeye gobolkani uu ugu yahay mid muhiim ah waddanka Ruushka. sababta waxaa lagu sheegay Putin ayaa ku adkeysanaya in gobolkani uu qayb ka noqdo waddanka Ruushka. maxay tahay sababta ay u aragto Ukraine inay isdhiibto inay khatar ku tahay jiritaankeeda? si loo fahmo arrimahaasi dagaalka xudunta u ah waxaa waajiba in dabagal lagu sameeyo gobolka Donbass sidiisaba muxuu yahay, qaryada ahaan muxuu yahay, maxay tahay khayraadka faraha badan ee gobolkan ku jira. waxyaabahaas oo dhan ayaa muhiim ka dhigaya gobolkan iyo inay Ruushka ku dhagaan. waa gartay. waa yahay maxaa ka dhexeeya marka xiriirka muxuu yahay ka dhexeeya Donbass iyo Ruushka? Ruushka ayaa gobolka Donbass u haysta inuu yahay qayb asaasi ah oo ka mid ah adduunka Ruushka. shacabkiisana inta badan afka Ruushka ay ku hadlaan, dhaqan iyo dhaqaalana Ruushka ayaa u ah khibrad. doodaha oo dhanna waxaa qaabeeya ma aha oo keliya inaan laga baaqsan karin in gobolkaasi uu Ruushka tirsan yahay. qarniyo badan ayaa waxaa la meel marinaya siyaasado gobolkan lagu ruusheynayo oo dad Ruush lagu tallaalayo. qarnigii 18aad kadib markii imbiradoriyadii Ruushka ay jabisay Cuthmaaniyiinta ayaa gobolkan oo aan dadkiisu badnayn ahaa dhul beeraha ku fiican koonfurta bari Ukraine ku yaala ayaa magaca laga bedelay. waxaa loo bixiyey Novorossiya oo u dhiganta Ruushka cusub. Catherine the Great boqoradii la oran jiray ayaa ku dhiirigelisay dadka Ruushka inay deegaano ka samaystaan maadaama laga helay dhuxusha dhulka laga qodo 1722 kadibna qarnigii 19aad ayaa aad loo bilaabay in dhuxusha laga beecmistiro laga qoto meeshan. gobolkii oo dhan ayaa waxa isku bedelay meel shaqaalaha Ruushka degan oo dhan ay u soo shaqo tagaan. sanadka markuu ahaa 1897 tirokoob la sameeyey Ukraine waxa ay noqotay oo keliya 52% dadka ku nool gobolkaas. Ruushkana waxay noqdeen 29%. magaalooyinka waaweyn iyo warshadaha inta badan ayaga iska lahaa. xilligii Itixaadka Sofiyeetiga ayaa Ruushku awoodiisii sii ballaariyey. Stalin ayaa meel mariyay siyaasado ay ka mid yihiin in uu qaxiyo dadka aan ahayn dadkan afka Ruushka ku hadlin. intii u dhaxaysay wixii ka dambeeyay 1932 ilaa 33 markii abaar ba'an ay ka dhacday Ukraine oo dad badan ku dhinteen. dadkii ayaa aad tiradooda isu bedeshay. waxayna noqotay dadka intiisa badan inay Ruush noqdaan. barnaamijyada waxbarashada 1950 ayaa afkii Ukraine iskuulada laga diiday. waxaa noqotay gobolkan inuu gobol Ruush noqdo. xilligii la soo afjaray ama ugu dambeyntii uu marayay Itixaadka Sofiyeetiga mujtamaca ku nool gobolkan ayaa intiisa badan ama kala bar Ruush ahaa. luqadda Ruushka ayaa ahayd luqadda nolosha lagu isticmaalo. dhaqan ahaana iyo siyaasad ahaana
ruushka ayaa majaraha u hayay gobolkan. Viktor Yanukovych oo ahaa madaxweyne ku dhashay gobolka Donetsk ayaa xukunka la wareegay 2010kii. gobolkiisa dadka inta badan afruushka ayay ku hadlayeen, hase ahaatee mu'aamarad la soo kariyey ayaa 2014kii looga tuuray kacdoonkii Ukraine ka dhacay xukunka, wuxuuna u cararay magaalada Moscow. marnaan xagga siyaasadda ayaa yimid oo dhabbaa u xaaray in gobolka Donetsk iyo Luhansk ay ka go'aan Ukraine intiisa kale, waxaana taageeraya ciidamada sirta iyo ciidamada militariga ee Ruushka. goboladan goonistaag ku dhawaaqay ayaa waxa ay noqdeen kuwa ay Ruushka u isticmaalaan inay xasilooni darro ka rido waddanka Ukraine. ugu dambeyntiina waxaa timid sanadka 2022kii Ruushka inuu xoog ku soo galo gobolka. waa gartay, waa hagaag. daawadayaasha aynu u yara jilcinno Donbas, afarta gobol oo Ruushka horta uu qabsaday sida qariirada ka muuqata waa Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson iyo Crimea oo qabsaday 2014kii. marka Donbas si daawadayaasha ay u fahmaan waxaa la isku yiraahdaa labada gobol ee Luhansk iyo Donetsk, labada kale kuma jiraan oo ah Zaporizhia, Kherson. waayahay maxamed, marka Donbas maxaa ka dhigay muhiim marka laga hadlayo gobolkan, muhiimadda uu leeyahay maxay tahay? gobolkan Donbas qariida ahaan waa 52 kilomitir square ah, 8% ayay ka tahay dhulka Ukraine loo yaqaano maanta. waxa ay ku fadhidaa goobo istiraatiiji ah oo ay ka mid yihiin dhuumo shidaalka Ruushka ka soo qaada oo mara halkaas, goobo laga qodo dhuxusha, iyo goobo militariga Ruushka difaac u ahayn jirtay waagii hore. dhanka Ruushka marka la fiiriyo in ay Donetsk iyo Luhansk waxay u tahay goobo istiraatiiji ah oo marka hore waxaa la xaqiiqsanayaa dhul isku xira jasiiradda Crimea iyo jasiiraddaas iyo dhulka. jasiiraddaas waxaa qarameeyey 2014kii waddanka Ruushka. Ruushka waxay u ogolaanaysaa in jasiiraddaas sahay la gaarsiin karo iyadoon laisku hadlaynin buundada weyn ee Kerch la yiraahdo. dhowr goor la weeraray. arrinta labaadna waxa weeye Ruushka waxa ay siinaysaa inuu gacanta ku dhigo dhammaan xeebaha waqooyi ee badda Azov oo isu bedelaysa bad uu Ruushka maamulo, waxaana meeshaasi ka caaganaan doona maraakiibta dagaalka ee Ukraine in ay u soo dhowaadaan ama ay yimaadaan dekedaha Crimea iyo Donbas. dhanka Ukraine marka laga fiiriyo Donbas waxay u tahay gaashaan ay isku difaacaan. sanado badan ayaa Ukraine waxay ka dhisaysaa saldhigyo military iyo difaacyo adag, waxaana muuqata in magaalooyinka ay ka mid yihiin Kramatorsk iyo Sloviansk in ay yihiin goobaha uu hadda Ruushka kusoo durkayo, ciidankiisa kusoo dhow yihiin. haddii goobahani uu Ruushka qabsado, Ruushka waxa uu gudaha u geli karaa bartamaha Ukraine, khatarna waxa uu gelin karaa magaalooyinka ku teedsan webiga Dnipro. madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa digniin waxa uu ku bixiyay haddii gobolkaasi laga qabsado in ay buundo u noqonayso Ruushka mustaqbalka weerarada uu ku soo qaadi doono waddanka Ukraine. hadda xaaladda taagan Ruushka 88% gobolka Donbas asaga gacanta ku haya, oo ay ku jiraan dhammaan Luhansk iyo inta badan Donetsk. hase ahaatee Ukraine difaaceeda ayaa galbeedka weli waxaad moodaa inuu adkaysi leeyahay oo isdifaacayo. dagaalkana waxa uu hadda ka socdaa Shafes Yar, dagaal qaraar ayaa ka socda, qiimo weyn ku fadhiya. tartiib ayaa Ruushka usoo durkayaan, inkastoo tiro ahaan aad looga badan yahay iyo awoodda xaggeeda waddanka Ukraine. waa gartay,
arrinkan dhinaca kale aan ka eegna maxamed iyo hamiyadda gobolkan uu leeyahay xagga dhaqaalaha iyo waxyaabaha hodanka uu ku yahay iyo macaadiinta ku dihan bal haddii inooga warran gobolkan. Donbass ma aha keliya goob lagu dagaalamayo, sidoo kale waxay leedahay qiimo weyn oo xagga dhaqaalaha. Dagaalka ka hor gobolkani waxa uu ahaa mid soo saara rubuc wax soo saarka xagga warshadaha ee waddanka Ukraine, boqolkiiba 15 ku dhowaad. Birta warshadaha laga soo saaro, warshadaha kiimikada sameeya, goobaha korontada laga dhaliyo, waxaasoo dhan waxay lafdhabar u ahaayeen wax soo saarka warshadaha waddanka Ukraine. Dagaalkan ayaa hadda waxa uu kashifay in Ukraine ay aad ugu tiirsanayd gobolkan, gaar ahaan markii warshadihii korontada dhalinayay sida Mariupol la burburiyey. Ukraine warshadeedii korontada, warshadeedii biraha sameynaysay, wax soo saarkeedii wuxuu hoos u dhacay boqolkiiba 71 sanadkii 2020 markii la burburiyey warshadaasi. Ruushka markuu xoog ku qabsaday ayaa waxa uu la wareegay goobihii macdanta lagu qodi jiray iyo goobihii ay saliidda iyo gaaska ku jireen lagu qiyaasayo 12.5 trilyan. inta badanna waxay ku jiraan gobolka Donbass. gobolka waxaa sidoo kale uu ka kooban yahay 56% dhuxusha laga qodo dhulka. gaas badan oo kayd ayaa ku jira iyo saliid badan oo kayda. dowladda Mareykanka hay'ad sahanka sameysa ayaa ku qiyaasaysa Donbass oo in 59 trilyan oo cubic feet oo gaas inuu ku jiro iyo 1.6 bilyan oo barrel oo saliid ah. mashaariicda inta badan la yiraahdo Yuviska banka la yiraahdo ayaa Ukraine waxa ay ahayd meelaha ay ka dhoofin jirtay wax soo saarkeeda xagga shidaalka. hadda waxaad moodaa inay ku tiirsan tahay Ruushka. taa beddelkeedii Ruushka hadda waxa uu gacanta ku hayaa khatarna gelinayaa goobo badan oo wax soo saar lahaa. waxaa sidoo kale uu dardargelinayaa amnigiisa iyo dhaqaalihiisa Ruushka. waxaana meesha ka baxaya dakhligii soo geli jiray waddanka Ukraine oo hoos u dhacaya. Donbass waa meel qani ku ah macdanta dhifka iyo naadirka ah. sidoo kale waxa ay horumar fiican ku leedahay xagga tiknoolajiyada iyo hubka. Ukraine waxaa ku jira leeyahay meeshaasi mineralska ugu qaalisan oo Yurub wax soo saarkeeda uu ku xiran yahay oo 34 ka ah. 22 ka mid ah laga helaa meeshaas, wuxuuna ku urursan yihiin dhinaca bariga. meeshaasi hadda uu Ruushku haysto. dhanka Ruushka inay ilahaasi dhaqaalaha maaha keliya inay xoojinayso dhaqaalahooda, waxay damaanad qaadaysaa in wax soo saarka xagga warshadaha Yurub ee mustaqbalka in uu majaraha waayo waddanka Ruushka. waa gartay waa yahay annagoo gabagabadii ku dhow maxamed arrimaha kale oo xiisaha leh waxa weeyaan in dhibaato culus ay ka jirto oo la xiriirta dagaalkan oo 3 sano dhaafay. iminka Ruushkana khasaaro badan baa ka soo gaaray, dhimasho badan baa ka soo gaartay. Ruushka marka laga tagana Ukraine ba waxay ku socotaa haadaan iyo jiritaankeediba in dagaalkan uu meesha ka saaro. marka waa dhinacaas inooga warran maxaa laga sheegayaa. 3 sano dagaal isku riiqday ayaa waxa uu abuuray xaalad aad khatar u ah oo labada dhinacba ay dhibaatooyin weyn ku timid, sida uu ninka qoraaga hadal ku dhigayo. dhanka Putin marka laga fiiriyo, dagaalkani waxa uu ahaa howlgal xadidan oo dib loogu qaabeynayo amniga Yurub iyo in la ballaariyo NATO. taa beddelkeedii gobolkani waxa uu noqday mid lagu dagaalamo, dagaal la isku riiqdo oo Ruushka askar badan ay uga dhimatay, qaar kalena ay uga dhaawacmeen. Ruushka awoodeeda ballaaran iyo agabkii militariga ay ka dhaxashay Itixaadka Soviyeetiga iyo taageerada ay ka hesho wadamada saaxiibadeeda oo ay ka mid yihiin Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa wax weyn u taray. halka
ruushka uu ku horjeedo xulufada reer galbeedka oo Ukraine lacag xog iyo hub casriya ku daldalaya. laakiin Putin ayaa dagaalkan waxa uu dhigay inuu yahay mid jiritaanka ruushka khatar ku ah, wax tanaasula inuu ka sameynin, adagtahay inuu ka sameeyo, heshiiska la gaarayana uu noqonayo mid khatar keeni kara haddii aanan la difaacin ama aan la jebinin cadowga waxaan sameeyey. sababtaas ayaana keenaysa in uu dagaalkana sii wado. dagaalka u dheeraaday dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ayuu saameyn ku yeeshay. dhanka Ukraine marka la fiiriyo sida qoraagan halka uu dhigayo, culays weyn ayaa saaran. Zelensky siyaasad ahaan ma badbaadi karo haddii dhulkaasi oga haro wadanka Ruushka oo sanado badan ay ku dagaalamayeen, askar fara badan oga dhimatay, ciidankiisa inta badan uu ku burburay. inta uu madaxda yahayna dhul sharafeedka iyo madax banaanida Ukraine inuu difaaco ayuu xil iska saaray. xaqiiqada waxay tahay dagaalkani wuxuu muujinayaa in Ruushka uu tartiib isu ballaarinayo. 4 goobood oo waaweyn oo bariga ku taalan oo qabsaday. in la aqbalo oo Ukraine ay aqbasho qodobada nabadeed oo Putin soo jeediyey waxay tahay mid xorriyadeeda burburinaysa iyo madax banaanideeda. Zelensky waxaad moodaa haddii uu arrintaasi diido inuu galayo dagaal weligii ma dhammaata ah. Ruushkana uma muuqato inuu tanaasulayo sida uu qoraaga hadalku dhigayo. waaya maxamed, gabagabadii marka haddii marka waxaan oo dhan ay jiraan oo Ruushka taariikh fac weyn oo hore oo qarniyo jirtay iyo taariikh cirqiga ku salaysan meeshan ay xiriir ka leeyihiin, Ukraine ay aaminsan tahay dhulkeeda inuu yahay aysan ogolayn naf iyo maalna ay u hortay, macnaheedu markaa waxa weeye dagaalkan lama oga meesha ku dhamaanayo iyo sidoo ku dhamaanayo. su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. Ruushka waxaa helay wax la yiraahdo, waxay Soomaalidu ku tirahdeen nin awood sakoriyo adigaa u aayay. wadanka Ukraine jiritaankiisa maanta 30 iyo dhowrka sano jira waxaa mas'uul ka ah dowladda Ruushka ayaa aqoonsatay Ukraine inay dowlad tahay. waxay bilowday inay la xirato wadamada reer galbeedka, khatarna geliso sida Ruushka ay u haystaan amnigii qaranka ee wadanka Ruushka. saa ahaatee agabkii militariga iyo qalabkii militariga la keenay ee reer galbeedku ay keeneen, wixii laga qabtay waxaa lagu soo bandhigay macradka militariga ee magaalada Moscow. dagaalkaasi Ukraine waxaa qoorta loo geliyay dagaal aynan ka bixi karin, umana muuqato hadda in nabad la gaari karo ilaa iyo Ruushka waxa uu rabo la meel mariyo. wadamada reer galbeedka iyo NATO ku biiristeedana waa habeenkii xalay oo tegay ama calaacasha oo timo ka soo baxaan. madaxweynaha Ruushka iyo madaxweynaha Mareykanka markii ay ku kulmeen bishan bartamaheedii Alaska, si buuxda ayaa madaxweynaha Mareykanka loogu sheegay hadduu dagaalka geli lahaa iyo hadduu dagaalka iska dayn lahaa iyo haddii uu dhaqaale ku taageeri lahaa iyo hadduu hub ku taageeri lahaaba, in Ruushka uunan ka noqon doonin hadafkiisa ah in uu hubsado istiraatiiji ahaan in uu gaaro amniga wadankiisa inuu sugo. waxaana muuqata Ukraine inay xaalad khatar ku jirto. khabiirada arrimahan la faguro dhanna waxay isku raacsan yihiin wadamada reer galbeedka wax kastoo ay ku tari kareen, hubka ugu badan iyo kharashka ugu badan waxaa bixinaya Mareykanka, sida uu ka marqaati kacay madaxweyne Zelensky laftirkiisa. Mareykanka taageeradiisa la'aantiis inuu dagaalka sii wadi karin. hadda Mareykanka waxaad moodaa inuu xiiqay haray sababa istiraatiiji awadeed isagoo ka baaqsanaya dagaalka saddexaad ee adduunka, inuu Ukraine iyo reer galbeedka uga haray in waxay sameyn karaan ay sameeyaan. 48 saacadood ka horna Mareykanku wuxuu amar ku siiyey Ukraine inaanu u isticmaali karin hubka gantaalada meelaha fogfog gaara wadanka Ruushka gudihiisa. waxaana muuqata mar ka sii dambeysa xaaladda Ukraine inay sii xumaanayso, Ruushka ciidamadiisana isballaarinayaan. dagaalkan uma muuqato marka uu dhammaado in wax Ukraine la yiraahdo ay jiri karto sida ay u dhigayaan khabiirada militariga ee Mareykanka hore uga tirsanaan jiray oo ka mid yahay Colonel Douglas McGregor
iyo ninkii khabiirka ahaa ee kale Scott Ritter iyo rag kale oo academicians ah ama aqoon-yahano ah oo uu ka mid yahay dagaalkani sidiisa markii la gelinayay Ukraine dana dhaqaale ayaa looga dan lahaa dhaliyay dhaqaalahana lama helin gobolladii dhaqaalaha lahaana dhalo gobollada hore ruushka dadku ugu tallaashay ahayd waxa weeye candhuuftaada dib u laq wixii bacay dagaalkan Ukraine ma sii wadi karto waxayna u muuqataa xalku inuu looga baaqsanayo in dagaal saddexaad adduunku yimaado oo qarka loo saaran yahay waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna iyo mahadsanyihiinta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan kasoo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli